بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة وقتك كوبا دراديت إن شاء الله تعالى سكوبا بانو تلمامي دونا عنوانك كصابسا إدارة الوقت وكما دعنا وانت ولا لدسوق بيه waqtigan ama casrigan dabaynu joogno siba reer galbeedka in badan ba aragteen qoraallo aad u tiro badan oo lagu tilmaamayo idaarat alwaqt ama maamulka waqtiga bal qaarkood ay ka mid yihiin bestseller bookska ama mabiicaadka ugu waaweyn ee dunida lagu kala gatay bookska si guud baan markaa isaga dul mari doonaa anigoo inta badan qaban doona kitaabkii sunnadu waxay yiraahdeen هذا التراد الرجال قلبتك وحن رجينيا أنت تلمامين وقرآن يا حديث عن أخي ولذلك وان كم مار مدونا إن وحبضا مراجع دوضة تلمامه وقت جودهان وحكم دي هاي صدح ده موردة مصدح ده هنتيو ده هو وين أمة ده هاي سطو هاي هذا حضاراتك بين آدمكو وصدح شيء سيد اللي يسلف القلية بين هذا والوقت والأرض والإنسان ووقته يقف بنا آدم ينرل سفلسين شكل الشيء يا حضارات كلا الماما واحد هذا صدح ذا الشيء وواصله ومضى ولما وقتك أنت أي كفا إيديسته أيو كحرن يهور مركز يا البحر مدد يدد مدد يشريتان كيد يحوق يدبا markaynu quraanka dib u eegnana ahamiyada waqtigu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan buu tilmaamay walidaalika bay culimadu waxay yiraahdaan waxyaabaha rabbi ku dhaarta waa tilmaam laynoo tilmaamayo shaygan weynidiisa quraankana waxyaabaha waqtiga ku saabsan meelo badan baa Ilaahay ku dhaartay wal fajr wa layaalin 'ashr wal layli idha 'as'asa was subhi idha tanaffas والعصر إن الإنسان لفي خسر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى يعني النصوص آدو بدنا قرآن وما لنت يهبينك أما قبل لك كم إذا لغو دارنا يا ما عصر قولا لغو دارنا يا قرآن كتاه لو حاصل من واحد تلمام يا وقت جايه قيمة أولية واحد هذا وقت وهنتك لو كجديسين وحكجديسين كو ومورد محدد بين هذا وهنتيجو أن قفكستو بني آدم والدنيا ده كرشوجا أفريلا تنسعد ضم هيستا إن الله قبض مايو هذي السنوات كنا الله شطحينا إن جو أنبض هيستا متكنت النول يمد لحدا النول با وقت جو أنبض لهذي واحد هذا هو مورد أن تخزين كأقبلين ما كيت سمو وهنتيجا aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yiraahdaan laakiin waqtigu kaba mid ah waxa kaydka gala 24 saacadood ay ku soo marayaan wana compulsory waxay yiraahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaabo aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la deynsan karaa waxa kale oo dhan bay dhahaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo إنكينو وهنتيدا بدن لساعد مهل كرر ديرادا أفريلا تنك ساعد أدبو هايستا غيري دنا ساعد دي بلوما ديجي كرو وقتي سوكو دمانا يا سادراد دو حيدا وقتو ومورد محددة وان جلين كيد مقالو لما قدن كرو بدل مقالو واتكو قصبانتا إنا تصرفي دا بيلا هاي قيمه سنوحن بو كوكور دا بيلين سيدا لوغا فايديستو وقتها قيمهيس وحكو كرنا استغلاله سيدا دوغا فايديسته ساعد قيمة له هي ساعد عن قيمة لهين لبدا بوات سو مريسا هدي جودهان لاغانا بايدا هدان ومدة مجهولة انت الدنيا دا جوغيسو صدر هذا وحدان قفك بني آدم كاي هانتيدا نبتة او هايستا وانت وچريو هانتيدا نبتة ادلا هاي وانت وچرو والرأس المالي الحقيقي قفك بني آدم كايستو
إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا وحى لغا شيغا إنه ورن جري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ورير نبي آدم ومالمون باطهي بولي مالني markay ka tagtaba qayb adiga kamida ba tagtay idan cimriga la sheegayo iyo waxaynu haysano waa seconds adiga qiimo kuma leh laakiin nolosha marka la xisaabanayo marbu chachab ku qiimo leeyahay qoladan orda maxay kala dheereeyaan koon xufta carara 9 chachab wa seconds wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan ثانيه اما second wax ka yar ayaa wan lagu galaamo tuu lagu galaamo jaayisad lagu hela ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa hadaba waqtigu qofka bini aadamka ah waa waqtiga waxaana cajiib waqtigan aynu hadda joogno galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha ku sii dhawaadaba inuu farxo birthday waa maxay badbaad cimrigii tuurtay Soomaa xaq xabaasha markaad u sii dhawaataba miyaad farxi wax qabadku ma farxaysid waxaad intaajada soo kale ma jiro waa mujarrad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha ku sii dhawaatay weeyaan waqtiga caynka lehi sida qiimaha u leh ka faa'iideysigiisu wuxuu ku xidhan yahay yiraahdaan qiimaha waqtiga inaad fahamto haddii qiimaha iyo ahmiyada waqtigu uu leeyahay uu fahmo qofka bini aadamka ah waxa uu fahmaya garanaya sida uu uga faa'iideysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaaliyo waxaan qabtaan garan waayo waqtiga maxaynu ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwara waa maxay rabbi rji'uun ilaahu i'ali wa kan adimka garan laaday si aad tiraahdo ayaa calaalku noqon doona ilaahu waqti yaro damba halaysiyo hadduu marka qofku bay yiraahdaan hadafku kallumo qiimaha waqtigu uu kallumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبا نعمة أي يشرب النبي قولي وضد بدنا يكون كتسومي أكتود عن قيمة كيالا ومحي وعافماتك هي فراغة عافماتك ما كانوا لنا هي ومحي معنيش dadka jooga dhakhtarka umniyadooda ugu weyn ma taqaan qofka dhakhtar ku jira waxa ugu weyn ee uu rajaynayo qofka dhakhtarka ku jira waa inuu marun kaco akbar umniya dadka inta haysata ma ogti subax inta soo kacday ma tiri alxamdulillah rabbil alamin saakwan caafimaad qaba مسوى daily life وسيدي دي روتين كهيدا ترجينيسي أنا تصبح يسقى صوك عدو دردوريسو وميلها أمر بتيجي صور نقطين already واد رجينيسي والنبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام نعموين كقوة وين ابن آدم كوجرن كريلائي وحويا عافماتك هي وقتك منكم مركب اللي يرد يهينا والله وضع وفي عنا وهيستو كدا هذا لقاره labaduba way lumaan daa markaad sii jirtaba caafimaadkaagu hoos buu sii socdaa isla markaa waqtigaaguna uu sii yaraadayo waa lagula yeeshaa calaaqdiyo dadka kugu xidhan iyo mushkilaadka taxallilisay ayaa badanaya markaa wax badan baan jaanis u helin laakiin ninku markuu dhalinyarada yahay labadaba keligii baa haystaa caafimaadkana inta badan mostly dhalinyaradu caafimaad qabtaa waqtigana waxba kuma xidhna isaga maamusha waxa uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam si aynu u fahamno waqtiga qiimihiisa ilaa markaas aynu idaareyn karnaa markaasaad garan kartaa maxaad ku qaban doontaa qiyaamaha marka la tago
su-aalaha ugu horeeya la isweydiinaya ilaahay hortiisa lagu joojinaya dhaqaaqi maysid su-aalaha inaad ka jawaabto mooyaane su-aalo 5 ama 4 riwaayadka xadiis waa ku soo arooreen waxaa lagu weydiinayaa cimrigaagii iyo waxaad ku bixisay qiyaamaha ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid inaad su-aashaa ka jawaabtid mooyaane maxaad ku qabatay cimrigaagii waa mar labaad waxaa lagu weydiinayaa cimriga qayb ka mid ah war dhallinyaronimadii sidaad u gashaa lagu weydiinaya waqtigaad dhallinyarada ahayd mar saddexaad waxaa lagu weydiin xoolaha xaggay kaa soo galeen iyo xaggaad ku bixisay mar afraad waxaa lagu weydiin aqoontii maxaad ku qabatay wixii rabbi ku baray waxaad aqoon heshay maxaad ku qabatay su-aalaha kani waa su-aalo qof kasta oo aadama ah sugaya in aakhiro la weydiiyo afarta su-aalood markaa 2 ka midi waa cimriga midi waa cimrigii oo dhan iyo noloshaadu maxay hadaf lahayd maxaad qaban jirtay noloshii oo dhan midna waa cimriga qayb ka mid oo ah qaybtii aad ugu caafimaadka iyo firaaqada badnayd waa markaad dhallinyarada ahayd waa qaybtii iyadoo labada nimcee dheeraadka uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam sida awgeed qofka muslimka ah mar kastoo cimriga lagu sii dheereeyabana xisaabtiisa sii badanaysa awalam nucammirkum ma yatadakkaru fiihi man tadakkar وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إلهي وحلا أولم نعمركم ورمينا إذن عمر سنين مدوان توبا إنو كوان توبا با إلهي سبحانه وتعالى نبي قلنا حديث بخاري وحليه أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة إلهي وعذر داري نمو الدبو دقاي وأجشي صدم لو قد دقاي إلا ولحدا كقاري يعني لحدا هداد قادو عذر دارنا حتى هلي ما يسدال لي وحاو النبي ينبري عليه الصلاة والسلام مركي إلا إنو الشيء قيمها ووقته لي إيه سؤالها قيامها الضنبية إيه إن وحلو حسابي يوي هي أيها هدنا وحو النبي ينو الشيء عليه الصلاة والسلام سيدا وقفي عني اللي وقفا إيدي سنكره nolosha qofku isku wada qura ma marto nabigu wuxuu leeyahay shan horteed ka faa'iideyso waa maxay dhallinyaronimadaada ka faa'iideysa buu nabigu leeyahay intaanad gaboobin marka qofku da' noqdo oo weynaado garaadkiisu roon yahay tajribo fiican oo nololeed buu leeyahay laakiin awoodiisa soo yaraata wuxuu qaban jiray ama uu awoodi jiray markuu dhallinyaradaha ma awoodo nolosha waxay ka tahayba sida awgeed buu nabigu wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam war intaad dhallinyaro tahay intaad activity-ga leedahay intaad caafimaad qabto intaad waqtigaaga adigu leedahay aan cidi kula lahayn markaad weynaato ee caruur yeelato ee xaas yeelato ee bulshada wax u qabato ee dadka ku xidhanto dad badan baa waqtiga kula leh laakiin ninku markuu dhallinyaro yahay isaga waqtigiisa iska leh hadduu boodboodayo iyo hadduu cayaarayo iyo hadduu 5 saacadood TV hor fadhiyo iyo hadduu wax ku baranayaba he owns isagaa leh cid lama leh sawgeed buu nabigu leeyahay dhallinyaronimadaada ka faa'iideysay intaanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iideysay buu nabigu leeyahay intaanad bukoonin qofku markuu gaboobo inta badan bukaan socod buu noqdaa inta ugu badan leh dadku markay da' soo gaadhaan xanuunadu waa iskaga bilaabmaan walow uu nool yahay waa bukaan socod amaa qofku markuu caafimaadka qabo markuu dhallinyarada yahay markuu da'da yar yahay waa xayawiya waa wada nashaad waa activity maskax ahaan jidh ahaan caqli ahaan meel walba waa caafimaad qaba nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inta aanad xanuunsanin caafimaadka ka faa'iide wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam intaad waxaysato ka faa'iideysa intaanad faqrinin bini aadamku markuu faqriga hiyay wuxuu yidhi haddii maalku soo galo والله سيدنا ودياري لهاي حقا أنا وضبحين لهاي صدقات كان وضيب لهاي دت كان وضحيدين لهاي مركي لكن سوق الشاوم با
jeclada ku badataa waayo sidaynu u kala maal badanaynu u kala baahi badanay asalka bini aadamku waa kaa faqiirka lagu sheegaya wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno iyo wuxuu cabiyo meel saxda taas u baahan yahay laakiin taajirku wuxuu u baahan yahay 20 mashruuc baa afka kala haya qof waliba jeebkiisa inta ku jira aqligiisuna uu ka fakeraa ninka 1000 shilin haysta mashaariicdiisu waa 10,000 wuxuu isleeyahay dad 10 isla hesho wax waliba dhag bay noqon lahay ka 10,000 laahay $10,000 markaad seeto mashruucagu waa 100,000 taadar haddaad milyan haysatana mashruucagu waa 100 milyan idan qofka bini aadamkii waxay dhahdaan hantidu uma kordhiso ghaninimo baahay u kordhisaa al-ghaniy huwa Allah subhanahu wa ta'ala haddaba waxa nabigu inoo tilmaamay alayhi salaatu wasalaam marka wax ku soo galaan ee nooc min al-ghina hesho xaqii sare ka sii fakarina ghinada intaad haysato ka faa'iideyso intan ka janagal intan dadka wax ka tar intan wax ka qabo waxa kale uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam firaagaka qabla shughlik inta aad firaagatay qofka bini aadamka ay markuu sii koraa waxaynu leeyahay calaaqaadkeeda xiriirkiisa relationsku bulshada leeyahay tira badata marka waqtiga xiriir ku noqda waqti uu shirku jiro waqti uu mid la hadlayo waqti uu reer isu maslaxayo waqti uu kan qabanayo qofku mashquul ayuu noqdaa laakiin waqtiyaa jira firaagu uu badan yahay nabigu wuxuu leeyahay marka inta aanad mashquulin ee firaaga tahay ka faa'iideyso ugu dambeynna nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin taanad godka gelin nolosha ka faa'iiday tamanaheedu waxay tahay waqtiga iyo chanceska iyo furaska inaad marnaba dayacin time managementka lagu sheegaya waa inta waxa weeyaan furaska iyo awqaadaadu inaanay ka dayacmin nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay isagoo taa inoo tilmaamaya war haddii midkiin uu gacanta ku hayo fasiiladu waa geedka yara timirta marka la beerayo geed timiraad aad gacanta ku hayso oo qiyaamuhu uu dhacayo oo aad ka gaadhsiin karta ka gaadhsii buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam ibnu mascuud baa waxaa laga sheegaa inuu leeyahay maalin cadceedi dhacday oo aanan waxba kororsan oo ajashayduna gaabatay sidaan uga murugoodo waxaan uga murugoodo ma leh maalin kaa khasaartay murugo ma kugu haysaa waxaad saga aragtaa ummadda kolleyba beri cadceedu soo bixi maalinta kaa khasaarta ibnu mascuud wuxuu leeyahay maalin cadceedi dhacday oo cimrigaygii laga jaray oo aanan camal samayn waxba aanan kororsanin maalin igaga murugo badani ma jira buu tilmaamaya ولذلك بقى علماء هوري مسلمين تقبيت تربضا وإذا اللي يرنمدا كترنيا وقتك كترنيا هذا تربضا بشيء إلهنا وحين لي ورهبين كنيا مالين تانية عددا يضيحني وحن سوي داري لتعلموا عدد السنين والحساب صندها تردودا هي حساب تينا قرطان إن نلاش وحكوه كورنيسو آخر مرة كانوا تقنينا وحلا ينوشي قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين إلا ينورن دونه وردون كيمسا سندود باتشوكتين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق إلهي وحينات المام يا سبحانه وتعالى قيمها وقتك أولي هي سيد وقفة يسأله علماء waxay oran jireen markaa waxaad ku talaga shaabeelay hadaad rabto nolosha inaad ka faa'iideyso az-zuhd fi al-fudul bay dhahdeen waliga isku day bay dhahdeen dheeraadka inaad ka zaahido dheeraadku waa maxay aragtida dheeraadka iska daa inta aanad u baahnayn daawashadeeda iska daa bay dhahdaan maqalka inta aanad u baahnayn dhaaf hadalka inta aanad u baahnayn ka tag dad dhexgalka inta aanad u baahnayn ka tag hurdada inta aanad u baahnayn ka tag nolosha dhan inta aanad u baahnayn internetka inta aanad u baahnayn ka tag imsa waqti idin baaqi noqon lahaa baad u malaynaysaa bahalkan leeyna raaciyay
suuqa markaad marayso iyo guriga markaad joogto iyo mar kastaba waad furaysaa Facebook gal kan gal wargal maxaad ka haysaa maxaa kaa soo raacay mise saacadooda TV daawataa wad malaynaysa keena ugu yar wuxuu yidhaahdaa almost bal warka saarada laba gooroo wara buu dhegaystaa ka ugu yaray laba gooroo warina waxaa laga yaabaa 2 nus saac inay kaa qaado su-aasha ku weydiinaya waxa weeyaan haddaad maalintii 3 saacadood daawato 10 sannadood ood 3 saacadood jaamacad tagaysay mise degree baad qaadan lahayd daily 3 hours aad tagayso mise degree baad qaadan lahayd mise credit hour weeyaan courses ka qaadataan wixii noo dhan markaa isku dartaan 160 credit hour 180 meelaha ku qali jabisa Soomaa mise saacadood weeyaan inta TV-ga daawato iyo intaad waxbarashada tagto ma isdhinac dhigtay nimankan dibida u eega surwaalka gaaban loo xidhay boodbooda intaad daawataan nimankan cududaa kuuskuusan leh la yidhaahdo harag la neefeeyey bay dabada keerayaan labadaa birood ninka dhex geliyey baa fiicnaadayna sacanka ma that's the logic wax kaloo ka dambeeya maad garanaysaa wax kaloo ka dambeeya ma jiro kan gartay muruqyadaaba uu kuusmaya eryayo lacagna uu helayaa aduu maxaad helaysaa nothing exercise maaha adigu iyo haddaad dabada boodboodaan dhaami lahayd oo adigu ma boodboodaysid waktigaaga wuu dhimanayaa 2 birood baa caag dhex marayna aakhiriya adduuntoona wax kama talo waxaa laga yaabaa in dhalinyaradu isku bedesho Manchester baa badinaysa iyo City baa badinaysa laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay time management-ka la sheegaya waxa weeyaan waa fuduulka ka tag dheeraadka ka tag hurdada in aanad u baahnayn sariirta ha isku nabin intay naftu u baahantay seexi laakiin in aanad u baahnayn Soomaaligu raaxada muxuu yaqaanaa markaad fasaxa hesho maxaad samaysaa khurada badisan Soomaa kaana ma cimrigaaga aanay ka tirsanayn qoladan gaaleed ee buuraha fuushaaba la qaato murqyada dhisanaya fasaxooda buurta fuule waa khawaar ruuxiya haya iyagana waxay buurtan u fuulayaan xataa hurdadaan ka imanaynin psychologically bay bukaan marka inuu ismashquuliyo physically inuu daalaabuu doonayaa si uu mentally u nasan karo waxay leedahay marka haddaad maqasho time management waxa weeyaan bay dhahaan noloshu inay ahdaaf yeelato that's all nolosha inaad target ka leedahay bishan maxaan qabtaa wuxuu programkaygu yahay qofka bini aadamkii waxaanu qaban karin baa iska yar hadduu programmed yahay quraan baad qaybi kartaa kutubta sunnada oo dhan baad qaybi kartaa kutubta physics aad qaybi kartaa kutubta biology aad qaybi kartaa wuxuu dhan baad qaybi kartaa haddaad programmed tahay hadday noloshaadu hadaf leedahay waxaad rabto inaad gaadho targetka haddaanad lahayn مثلا quraanka haddaad istiraahdo qayb tabacaadkan macruufka hadda waa 604 page halka page 15 sadar baa ku qoran sida caadiga less than 2 minutes buu qofka bini'aadamka ku akhriyaa imse goor baad u baahantahay page si aad u qaybto sadar inaad qaybto imse goor inaad ku celisaa baad u baahantahay 10 jeer 20 jeer yani qul wallahi inaad qaybto imse goor inaad akhridaa baad u baahantahay haddaad tidhaahdo 30 jeer baan u baahnay okay page inaad ku celiso 30 jeer oo waa 2 minute waa 60 minutes waa 1 hour baad u baahantay qofka ugu maanka yar la haddaad inaad page qaybi karto that means waqti kooban maxaan tusaalaha quraanka ugu bixinaya waxaan ugu bixinayaa hadafkaagu hadduu cad yahay waad gaadhaysaa 604 maalmood baan ku qaybayaa 604 page haddaad tidhaahdo 604 maalmood wax 2 sannadood ka yar waa wax 2 sannadood ka yar mucjiso maaha waa nolosha caadigaa bay ka mid tahay laakiin waa haddaad hadaf leedahay aad programmed tahay garanaysid maalin kasta saacadaad akhriyayso laakiin haddaad xamaasad tahay wallahi quraanka waa inaan qaybaha oo maanta akhridid oo berri nasatid oo saa dambe ku celisid oo saa ku celisid 10 sannadood qaybi maysid
وهي برنامج متهد هدف كيف وكان دعوة قرآن كغيب لكن ما مانج كرين وقت قانو ما تصمينين ما كنت لقرين واحد كو صمين لهي واحد كان يكتون ما لنا سدح بيت قيب لبا عشان اسكغتك وهو مشغول ايده قفك بني ادم كهي وحا وصميستو وقتي si fudud buu sameeyaa ma laga yaabaa inaad tiraahdo waqtaan waaye waxay yidhaahdaan ma baa jirta qolada time-ku ay sheegeen waxay yidhaahdaan waqtiba lama waayo ee masaladu wuxuun bay la mid tahay bay yidhaahdaan waa jalxadii dhagaxa lagu guray bay yidhaahdaan jalxadda ma taqaaneen ashoonka kuusada haddaad dhagaxan ku gurto mise dhagax bay qaadaysaa waxoogaa haddaad tiraahdo ciid kaga dabashu ma qaadaysaa dee meeliya dhagxanta u dhexdhexaysa ciiddu galaysaa waa qaadaysaa soo maaha haddaad tiraahdo laba koobo biyaa kusii dar ma qaadaysaa ha waxay dhahaan waqtigu waa sidaa maxaan uga jeedaa dadku inta badan dhagxantay eegaan laakiin inta kale ma eegaan bay yidhaahdaan haddaad wax walba istiraahdo saacad si ama 2 saacadood si waxa jira bay dhahaan waqti badan oo qofka bini aadamka ka dayacma oo wax badan ku qabsan karo ma ku xisaabtantaa 5 minutes inaanay ka dayacmin ama rubuc saac inaanu ka dayacmin halkee waa treenkaad raacdo jaamacadda iyo guriga inuu nus saac socdo nus saacaad quraanka ku qaybi kartaa hadduu programmer tahay treenka la socotay waxay dhahaan waqti aad shaqo kale ku haysay ayaad waxan kalena ku dhex qabsan kartaa xafiiska adigoo fadhiyaad wardiyi kartaa inaad wardidaa maxay qaadanaysaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa beere minute 100 inaad tidhaahdo minimum 60 waad odhan kartaa laakiin way nala badan tahay haddii lagu yidhaahdo wardigaaga subaxii waa 100 goor oo subxaan allah iyo 100 goor oo alxamdu 100 yaa odhan karayaad soo odhanaysaa socankaa maaha laakiin haddaad program leedahay waa waxa ugu fudud ee la qabto waa markaad guriga ka baxday ilaa intaad classka gaadhaysa awraadaada oo dhan ku filan waxa laaliya waxa wardi sunnaa ku soo arooray from the bed ilaa iyo classka intaad ku socoto 5 daqiiqo 10 daqiiqo socota 10 daqiiqo wardi oo dhan kuugu filan 10 sii socota inaad sii wardido 10 soo socota inaad soo wardido wardi isaga kuugu filan haddaad xaafid quraanka ku tahay quraan akhrisoo dhan 10 kaasaa kuugu filan xaafidka caadiga ah ee quraanka rubuc saac buu jiska akhriyaa gabadhluhuna nus saac buu akhriyaa idan waqtigu waxay leeyihiin sida looga faa'iidaystaa dhagxanta qurama hayda yani jalxadan waxay tusaalaha uga dhigeen inuu program kasta weyn oo aad samaysato ku kale ku dhex jireen aad samayn karto ku kale ku sii dhex jireen aad samayn karto sida awgeed ilaahay wuxuu quraanka inoogu tilmaamayaa kuwii habeenkii soo jeeday habeenkii dadku seexda soo maaha ragga badba programkooda uu ka mid yahay habeenkii wax ka mid ah inuu soo jeedo inagu habeenkii wax ka mid ah inuu xagga hore ka soo jeednaayo ama aflaam sii daawanaa ama riwaayad sii eegnaa ama tv-ga sii eegnaa ama program majaajilaa sii daawanaa haddaad liidatana heesa sii daawataa iyo wax la mid ah okay dadka kani programkooda wuxuu ahaa habeenkii markuu cishaha tukadaan inay iska seexdaan waxay dhahdaan caafimaad ahaan xataa habeenkaa ka hurdo fiican maalintii waayo jidhku habeenkii wuxuu soo daayaa hormoono seexa ku leh maalintiina hormoono kaco shaqata ku leh waad isweydaarisay nolosha haddaad noocaa u isticmaasho hurdada maalintii oo dhan waxaa ka fiican hurdada habeenkii inaad maalintii snaab yar waqti yar qaadanaysa mooyaane dadka kani waxay programaysteen habeenkii intaad soo jeedo in ka yar ubay soo jeedaan waanay ku janno galeen ilaahay wuxuu leeyahay innal muttaqiina fi jannatin wa uyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dhalika muxsiniin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun baa ilaahay yidhi habeenkii in yar bay seexan jireen in ku filan bay seexan jireen in ku filan bay seexan jireen laakiin inta faa'iidada lana way soo jeedi jireen inta aan faa'iidada lahayna way seexan jireen dadku sheekada ku soo jeedo habeenkii halkan 8 la tukadaa haddaad ardayto saacad 2 saacadood ka badan ma wax akhridaa waa caajistaan marka 2 akhridaan soo maaha 2 saacadood marka aad wax akhridaa haddaad seexato waa 10 habeenimo 10 haddaad seexato
imsaad soo toosi kartaa يعني أفرتها بين ما تصير عايزة لحسة عضو اسكو حاجة ما كانوا ردي أفرتها بين ما هدات صوك عضو إلى صلاة الصبح ساعة اللي راد باو ودحية قرآن بات قيبي كرتا صلاة باتوكان كرتا وحكلا بخرسان كرتا everything محانو قدن لنا إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ضد كان لينوش يجيو waxa laga yaabaa inaan ka salaad badnayd dad iyo kale laakiin waxa la inoogu tilmaamay waqtigooda say uga faa'iideysteen way program gareeyeen qof aan hurdo u baahnayn ma jiro qof hurdo ka maarmayna ma jiro bin aadam mid waliba uu seexday tatajafa junubahum an almadaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذا program garayso waa wax fudud قرآنك إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد مركو تببري هي صحابتي وحلقوا تببري تايمينج تقويمك وحلقة يا صلاة الليل كي انت بضن إني رقعداكم مرمان قوية بلد كان مثل نوريلا بلد كان قرآنك رقعداك ما ورمين هي السنة ضبا انت بضن السنة فعلي قاو برقعدات المامتي لكن السنة قولي هناك ما ورمين السنة قرآن هناك ما ورمين لكن وحكى ورمي وقت جاي يسأل له فائدة إلهي وحين عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كيس دوبا يوبا إلى هيلي هبينك كع يرمو يعني نسكي كع هبين نسكي كو أما نسكي كي يريبا ليلي وحير أما وحير كبادي أيضا سيدي الشيخ يسوع النبي قلنا تلمامة مركو تلمامة يصونك صونك هو فضي بدن إيو صلاة الليل كصلاة الليل كهو فضي بدن كوي نبي داود بالو شيء نبي داود محل يلي هبينك نسكي وسيحجر بغيتو سلسكي بغيتو سلسكي وانت أنا أيضا شيكتي بلا تلمامة هردك وفي لنا وات سيحانة لكن وحاو السمية وامحي أيضا وحي تلمامتين نبي قلنا الشيخ وحويا وتايم بروجرامينج وقفك وقتك يسوين حساب سنيهي أو حسابينيو إلهي سبحانه وتعالى آيات الضمو مركا كنت المامية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن قفك مسلم كاهي وقت فراق الله يراه نولشي سبا كما ميدها وقت فراق الله يراه كما ميدها إلهي وحليه فإذا فرغت فانصب بالليل أمور الدنيا يا واحد مركز كسوة فارغضه دال بالليل تي آخره يورد دي عبادة دي كان كل دال بالليل إذا قفك مؤمن كاهي وحقرتي عمره إنه يريه wuxuu gartay inaanu kayd gelin wuxuu gartay noloshuba inay maalmatiyo seconds wuxuu gartay second kasta in aakhira la weydiinayo cimrigo dhan in la weydiinayo dhallinyaradiisa in la weydiinayo waxa uu soo hadhay markaa waa maxay waa idaaratul waqt waa inuu waqtigiisa program gareeyo waxa soo hadhay waa intaa haddaad program gareyn weydo waxaad u calaacali doontaa xataa idaa jaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun geeridu markay u timaado qaar baa waxay ku dhawaaqayaan baa ilaahay yidhi ilaahayow i celi waxaad dalbanaysaa waa maxay waa intaad imaka hayso waa intan aynu hadda hayno ayaa markaa umniye iyo dalab noqon doona dadkii khayrka ilaahay uu ku sifeeyna suurat al-anbiya markii nabiyada laga waramay innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat baa ilaahay yidhi waxay kuwa u degdega khayrka ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلهي إننا وين هفريا وصارعوا إلى مغفرة صابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا هذا أيها الأحبة وقتي ومركز قيمه فهمتت وحد قرانيسا sidaad ula dhaqantid
bini aadamku inta badan xooluhu qiimihiisa yaqaan xoolaha saad ula dhaqantaan dad waxoogaa yar haysata habeen kasta waad xisaabtantaa tay shirkadu yaro ballaadhantahay bishii mar baad xisaabisaa sanadkii mar baa la xisaabiyaa waxaasoo xisaabaa lala daba taagan yahay maxaa loola daba taagan yahay bini meel cidla ku lumay inaanu jirin in la helo waxaa accounting iyo program iyo kan loo samaystay waxa weeyaan in la ilaaliyo inaan bini lumin ninka xoolaha leh intuu shaqada ku jira mooyaane habeenkii intuu maqanyayna iyagu u fakeraya sidii uu ballaadhin lahaa iyo sidii uu horumarin lahaa iyo sidii uu dhaqi lahaa iyagu u fakeraya xoolaha quraad haysataa waa waqtiye qiimahaasoo kale ma kugu leeyihi xoolahaad haysatee maalka ah waqtigaaga ka qiimo badan oo noloshaadiiya sidaad kan ugu xisaabtanto ee ugu fakerto ee u horumariso ee ugu dadaasho ma ugu dadaashaa isaga waqtigaaga ma u xisaabisaa oo ma ku xisaabtantaa maanta maxaa iga khasaaray 24 saacadood aan haystay maxaan lumiyay maxaan qiimo igu fadhinin maxaa u baahan inaan wax ka bedelo maxaa u baahan inaan timetable cusub u sameeyo maxaa u baahan systemkiisii hore inaan wax ka bedelo hadduu qiimaha weyn inoogu fadhiyo umamka xadaaraadkeenu sheegaynaa markaa waxaan leenahay waa siday waqtiga uga faa'iideeyaan ummadda waqtigeedu uu ku lumo inay qayeeshaana soomaalida ay la mid noqotaa xataa adduun marka la joogo ummadda waqtigeedu uu ku xisaabsan yahay sida wax loo soo saarayaana jabaan bay la mid noqotaa iyo jarmalka waayo laba bini aadan baynu inagamana caqli badna tacliintuna wax la baran karo laakiin waynan program garaysanayn waqtigaan qiimo inoogu fadhinin dadka wax soo saarana waxa ugu weyn ee qiimaha ugu fadhiya waa waqtiga shaqo kastoo la qabanayana time efficiency-gu waa waxa ugu muhiimsan wax kastoo program la fulinayo waqtiga lagu fulin karaa waa inteeba ugu muhiimsan iyagu waxay dhahaan waqtiga qoladan bugaagta badan inoo qortay waa erayo kooban waxay inoo sheegeen oo dhame waxay yidhahdaan kow hadaf yeelo target aad u socoto yeelo second to that waxay yidhahdaan subaxii markaad soo toosto to do list yeelo qaa'imat alacmaal maanta shaqada maxay sugaysaa markaad soo toosta bay leeyihin waa in jadwalkaagu halkan ku dhajisan yahay xalaad sii qortay bari 24 saacadooda soo socda waxaad qaban doonto marka waa inaad to do list yeelataa bay leeyihin second to that waxay yidhahdaan waa maxay jadwala shadwaling waa erayga af carabiga unoo laynoo sidan kale loo akhriyo jadwala in jadwal loo sameeyo jadwalka ugu fiican bay iyagu yidhahdaan waa inaad usbuucii mar buuxiso usbuuc kasta waxaad qaban doonto ama oo aad saacada u buuxsata bay yidhahdaan whatsoever ma idinku jiraa qof usbuuca soo socda wuxuu qaban kara saacad walba u qoranta usbuuca soo socda waxa uu rabo inuu qabtaa u qorantay idaarat alwaqtiga ay sheegayaan time managementka ay sheegayaan waa intaa waa inaad hadaf yeelato to do list qaa'imat alacmaal aad qaban doonto aada leedahay jadwaladaad ku qaban doonto aada leedahay qodobkooda saddexaad waa tartiib awlawiyaat priority say kugu kala muhiimsan yihiin maxaa must ah inaad qabato maxaase 50-50 ah maxaad waqti haddaad u hesho ku xidhan maxaa hadduu kugu dheeraado aad ka kala riixi kartaayo kanuu qaadan karaa idan waxay dhahdaan prioritieskuna waa inay calaamadsan yihiin colors bay ku isticmaalaan say u kala horeeyaan nolosha dhammaanteedba jadwaladay u sameeyeen waa intaa waxa dheer bay yidhahdaan tartiib alxayaa noloshaada halkaad la maraysaa waa inay kuu balaangaraysantahay bay yidhahdaan the coming 5 years the coming 10 years maxaad rabtaa inaad noqoto waxay leeyihin noloshaadu meesha aad rabto inaad qabato waa inay planidka ku jirtaa waqtiga soo socda maxaan qaban doonaa مثلا intiina badane arday baa u badantay ardaynimadu waxay dhahaan mushkilaadka maanta caalamka ku soo biray waxa ka mid ah maraykanka kale waxay dhahdaan dadka shaqeeya 80% waxay barteen kama shaqeeyaan bay dhahdeen
dadka shaqeeya boqolkiiba 80 waxay barteen kama shaqeeyaan waa mushkila waxay dhahdaan technology-ga cusubna qof kastaaba oo wax bartay 5 sano markay waxbarashadiisii ka dambayso 50% buu qiimaha lumiyay wixii uu bartay haddii aanu istatwiirin that means dad 5 sano jaamacadda ka sii maqantay shaqada aanad qaban 50% baatay shaqada lafteeda haddaad qabanayso ay si routine tahay bay leeyihiin oo shaqo horumar samaynaysa aanay ahayn 50% baad lumisay waxaad soo baratay cilmiga dee lama xifdisanaado wixii practical gala unbaa nolosha ka mid noqda beri baan wax bartay ilaa uu yahay iminka dugsi sare imtixaanka idinka qaada waa wada dhici lahayn socanka ma waa soo baranay laakiin dee cidina ma hadalhayso ma xasuusna beraan wax bartay wax ma tarto walidaalika waxay dhahdaan waxbarashadu qofku subject uu baranayo bay dhahdaan 3 shay haddii laga helo way fiicantahay waa jadwalo fiican bay dhahdaan haddii kale waxay leeyihiin jadwalkaasi adjustment buu u baahan yahay dambe qolada carabiga waxay dhahdaan waa rafaqa bay dhahdaan الراء والفاء والقاف bay dhahdaan in laga helo malaydinku kuwa ingiriisiga jeceshay inuu kuwa carabiga idin sheegaya rafaqadu waa maxay ra'du waa ragba waa interest haddaad wax baranaysa bay dhahdaan waxaad xiisaynaysa baro waxaanad xiisaynayn haddaad barato waxay u badan tahay inaad hadhowna ku shaqayn doonin jaamacad baan ka baxo shahaadad baan qaatay qiimo ma leh waxa bahashan loo galaa waa maxay inteeda badan dee waa hunguri socanka maaha sanad walba wixii marketka ku badan bay ardadu u badataa walidaalika bay wasaaradka waxbarashada dunidu sanadba jaamacadka qayb bay yareeyaan ardada loo qaadanayo waa polisiga dowladda qaybna waa la ballaadhiyaa qaybna waa la soo yareeyaa dadku muxuu dhakhtarnimada u jecel yihiin waan lagu shaqo waayin bini aadam buu ka dunidoo dhan jooga yacni waxa weeyaan waa jobs shaqadeeda ay meel kasta taalla idan wax loo bartay ugu badan ee dadka ay wax u bartaan dowladda saraa hagta mustaqbalka dadka laakiin dadku markay fardi tahay inta ugu badan leh maxaa bulshada anfacu leh kama fakaree maxaa jeebkayga u roon buu ka fakaraa socanka maaha haddaba waxa jeebkaaga u roone waxa interestkaaga u roonna inuu noqdaaba fiican bay leeyihin sabjigu inuu interested yahay adigu aad jeceshay dadka badhba waxbay jecel yihiin ثاني الأمر waxay dhahdaan fursa waa inay jirtaa haddaad dee meeshaad joogtaba aan sabjiga lagu haynin ama aanad awoodi karaynin oo dhaqaale ahaan yani fursad haddaanad haysanin inaad kaga riyootaa ma fiicna waa inay fursadu tahay wax possible waxa kani oo deegan karayso ka saddexaad waxay dhahaan qudra inaad awoodi karto yani maalan sabjigan aad jeceshay waa sabjiga u baahan calculation tiro badan leh adiguna xisaabta kuma fiicnid therefore waad iska laablakacbaad wadaaye ma aha wixii aad baran lahayd waa inaad qudro u leedahay sabjiga inaad baran karto saddexdaa shay haddii ardaygu isla hela bay yidhaahdaan waa good choice-ka waa sida ugu fiicana loo doorto bay yidhahdeen sabjiga inaad qaadato macaayiir shanina bay yidhaahdaan oo kale iyana way qiimo gelisaa laakiin waxaasoo dhan isku soo duuduub waxaan leenahay haddaad rabto time management asalkiisu waxa ah inuu waktiga iyo qiimaha uu leeyahay inaad fahamtid waana ta qur-aanka iyo xadiidku inta badan inoo sharxayaan inta badan ay ceebaynayaan qof aan aakhiriya adduuntoona noloshiisu ka tirsanayn inta badan qur-aanka iyo axaadiistu ay ammaanayaan acmaal yaryar oo lagu janno tago waa si waqtiyadada firaaqa aad waxa kaloo dhan ugu buuxin kartid idan waqtiga iyo ahmiyadiisa inaynu fahmno qodobka hadduu inaga dhaadhaco waxa soo hadhay waa farsamo oo saynu u farsamayn lahayn haddaba waqtigaasaynu uga faa'iideyn lahayn saacad walba waqtigaad qaban lahayd qayb nolosha ka mid ah ilaahay baa jadwaladeeda inoo dejiyey waana good thing maalintii 5 jeer baa laynidhi tukada
ووقتك جدول لو سمي شنقور إن عمل كاقبطين هذا إلهي اللي حديدا وحين هذا ما برنامج هذا وقف في عنه وحلقه قابيه صلاة الصبح إلى الظهر محان قبطه ظهر إلى عصر محان قبطه عصر إلى مغرب محان قبطه مغرب إلى عشاء محان قبطه nolosha waxa kamida cimrigeena balaan la yiri one time sameeya xaj one time waxa kamida wax la yiri sanadkii mar sameeya oo waajiba soonkii waxa kamida sanadkii wax la yiri mar sameeya oo zakadii hadaynu bixin karno idan waxa yiraahdaan nolosha qofka muslimka oo dhami waa programmed asliyan laakiin waxa ka dhiman intii lagu buuxbuuxinayay oo ah adigu waqtiyada u dhaxeeya hadaba waxa timing-kan leeynoo siiyay jadwaladan baa la leeyahay inaynu ku dhaqanno inuu jadwaladu nolosha qofka muslimka ay ka mid tahay to do list inuu ka mid yahay priority inay ku kala leeyihiin waxa soo dhami ka mid yihiin hadaba waxaynu u baahannahay inagu ka muslim ahaan inaynu dib ugu noqonno nolosheeni oo dadyaga waqtigoodu ugu lumista badan yahay maanta waxa kamid ah caalamka islaami in badan oo kamid la fi dunya wala fi aakhirah labada midna lagama faa'iideeyo qayb badan waxa sababay jahliga ama jahliga nololeed ha noqdo jahliga diimeed ha noqdo ayaa noqday ceeb waxa hadaba inta intellectualka sheegata inay yanayntii juhalada la mid noqoto waa ceebta ugu weyn intii fursad waxbarasho heshay ee jaamacada heshay ee dhul laga shaqeynaya timi ee dad munadama u timi ee nolol aragtay ka gadisan tii ay joogeen inay yana mentality-goodu sidii ahaado asi u fakartaan noloshaadu say u bargaraam garaysantay uu ahaado odaygii burco joogay sidii uu waday aragtidiisii ay ahaato waa wax ceeb ah idan dad dhalinyaro baatiin ardaya dhul wax laga barto jooga waqtigiina ka faa'iidaysta oo degree iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba waad qaadan kartaa haddii aad tahay qof soo jeeda oo nolosha inuu hadaf xaqiijiyo ka damacsan waxaan jeclahay warku inuu koobnaado oo risaalo kooban dama macallin baan ahaan jiray maskaxda bini aadamkuna in bay qaadaa hadalka badanina kiisa hore kiisa dambu masaxa warkaan u socdo dhimo wax weeyaan war waqtiguna qiimo agtiina ku yeesho jadwalada iyo to do list-ki intaana waa ka adagtiina samaysta laakiin daqiiqadaha ku xisaabtan qofka soo noolaada dee xabaalaad dad laga soo celiyo muxuu samayn lahaa baad u malaynaysaa ma odhan lahaa caruurtii maxaan ka tegey xoolihii xaggay jiraan dadkii yaa dhaxladay baabkaa ma ka fikeri lahaa bise waxaad u malaynaysaa inuu subxaan allah da boobi lahaa iyo laa ilaaha illa allah wuxuu dee soo arkay meeshay wax ka tarayso yani inaan daqiiqadii ka lumin unbuu ku xisaabtami lahaa idan nolosha markaynu leenahay waqtiga ka fakera saacadaha ka fakerin minuteskaaga balaangare dad maqasho aqoonyahan baa dunida soo maray waa qof noloshiisa ka faa'iideeyay tusaale waaxid aan dasiinaya in culimadii muslimiinta ka mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa kitaab buu qoray 800 oo majaladooda waa hal kitaab oo 800 oo volume qiyaas الفنون بالورن شري كتابك وحي أقول ما أنت مختي دريد التالون بك ورمية واحد دون طبعا نقط سداد بقول أو كتاب إمسات كوري لهي هذا ما لا ينسى إنك ده كاتب كأنه هو إنه هرت ده ما كان الصومالي نشمو قري صوما واحد شو يعني وهم قرّه لكن الكتاب لقرا ووح قرشت waxa ka horeysa waxaad ku qori lahayd inaad soo toojiso wax soo akhrido inta markaad 20 buug akhrida laga yaabo inaad hal buug soo saartay
ninka 800 volume qoray muxuu isagu soo akhriyaa malaynaysa ama soo barta ilaan muu riyoone 800 volume inuu qoro ninkaasi waqtigiisa wuxuu ku qaatay qisaska qariibka ay ka wariyeen waxa ka mid ah cunadii ayuu wuxuu yidhi waqti badan bay qaadanaysaa dabeetana gabadhi walaalihii baan filaya inay ahayd uu diray wuxuu walaal cunada haddaan fadhiisto oo calaaliyo raamiyo waqti qaadanaysaa baasha qoosho wax la cabo ka dhig cunadii wuxuu ka dhigtay inay noqoto maxay saan tahay uga lumin wax la cabo marka uu daalo oo qori kari waayo wuu iskala bixiyaa wuxuu dhahdaa intaana waxaan ka fakaraa bayjadka dambe wuxuu ku qori lahaa sidoo nidaamin lahaa inta uu kala baxsan yahayna yani qofka bini aadamka sida u fakiray waxay noqonaysaa inuu wax soo saaro culamadii hore ka mid ah mid yiri istaaga ku waramay orada cadceeda jooji ma ku yiri way buu تعمر خسارين سبيل هذا عدد تشوش أنا واستاجية وقت جيد هذا دي علنيس لكن هذا وقت بيوصل عنايا مرة بورك قبول هي شغال هيا لأن قفكو هذا وقت يسكو حساب طبعا قف كان للي عالم بون نقضي أقوياهم بون نقضي وانتو وقت قليل وحي وأنبياء دي بكو قبوب أنبياء دي دبدات عندنا وحيكم مسعودة عقل بدن انت مال الله فرستنا وحمد الله تضل كفرست عقلي وينتي عاوي بالربا عقلي وين الك لا فديدو وحبك ما صباحا لكن وهاو ماتش يو فيد قفوا انتو بلادا انتو عنو صوما نما وحنا نمي بلادا ما يا عقلها وحلوش بينا وحكما صباحا إذا قف عالم نقضي يا خبير بون نقضي يا كمبون نقضي وحويا وقتك كفايدي كلاس ميت كيس محون نقوم ويا وقتك أنا كفايديني قف كستو وقتك سوقي موقف فرديا نرش وحبك دالينيا قف كان وقتك سوقي موقف فردينا ده سين وسو تشرب وسو تشريا مد أرجع كوي أجنوا ذلك رئيس إن شاء الله تعالى ده وقتك هو سمو لكن دوني ده على إثبات قطعي زيادة وقفكم بدون دكوية دان وحوس يوكر لينيني وزيادة على الحياة إن تسيدي إلهي وأبوري ودول تاجناتا يدو عقل لك وسيا ودي يتمر وحبك كاسو بحوايان ووحليتا موضوع اللي يمكن دورا يوم في ليالتين دات كان intellectual كي ودك وسو السعودية ومضة إلى ربينا وحبدلان وحاد شوفتان هذا وقتي جعبدا لدانسنay waqtiga haantiina dhaansan lahayd waqtiga idin midhadha lahayd waa idin dambeeya hadda haddaad bakeeri noola timaadana in bakeeri uma laga heli haddaad adoo booyad sida la timaadana waxba tari doontaa waa saad jucbadaada u soo dhaansato taasina waxay ku xiran tahay waqtigaaga saad uga faa'iideyso sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin